new waa cusub waay. I bought a new car. waxaan soo gatay gaari cusub. chew waxa waaye ruug waay. chew the food very well. cuntada si fiican iskaga ruug. okay, chew. He's chewing a ball gum. wuxuu ruugayaa xanjo. okay, news waxa waaye warbixin ma taqaanaa news name. good news warbixin cusub. okay, have you listened to the BBC news? ma dhageysatay newska BBC? okay, stew maraq waay. this stew is nicely cooked. maraqaa si fiican baa loo kariyay. stew waa maraq. threw waa xooray waa. throw xor waaye. threw waa xooray waaye. so he threw the ball to me. wuxuu usoo tuuray ambirta ayuu isoo tuuray xaggay. ambirta ayuu usoo tuuray xaggay. waa waqti lasoo dhaafay marka. ambirta ayuu usoo tuuray xaggay. okay, ambirta ayuu u tuuri rabaa. dadii he wants to throw markaas. so threw adalla maxaa waaye waa tuuray waa tuuray. okay, grew waa ku koray waa. I grew up in a village. waxaan ku soo koray meel tuulo ah. okay, newdan iyo tanay waxay ku kala bedeleen. tan kaya ka bilaaban tan kay bala. marka tanay kaydana waa aqoon. I knew I'm a good boy. waan ogaa inaan ahay wiil wanaagsan. okay, brew shooro waay. I brew a cat on my exercise book. waxaan ku shooreeyey yaanyuur ayaan ku shooreeyey buggayga. okay, few wax yar waay. I have few issues to share with you. waxaan leeyahay waxyaabo yarba in la wadaagi rabaa. I have few things to do. waxyaabo yar oon qabto ayaan jira. few wax yar waay marka. read these sentences. akhri jumlooyinkan. jumlooyinkan waxay kaa saacidayaan adeegsiga luqadda. number 1, he never knew how to read. muusan ahayn mid garanaya wax si loo akhriyo. he never knew how to read. muusan ahayn mid garanaya si wax loo akhriyo. this stew is nicely cooked. maraqani si fiican ayaa loo kariyey. this stew is nicely cooked. do you want a new chat? do you want a new shirt? that's what I have. do you want a new shirt?